kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono arrimihii ugu dambeeyay ee la xiriira dhinaca baraha bulshada qabyaalada ka soconaysa oo dhibaatooyin aad u badan xilligan ku dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya arrintaasi ay tilaabo ka qaaday. haddaba barnaamijka waxaan ku eegi doonaa bal dhibaatooyinkaas ka dhashay dadka qabyaalada ka dhex wada baraha bulshada iyo qaabka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u wajahday arrintaasi iyo sida ay tahay in arrintaasi bulshada Soomaaliyeed ay u dareento. Engineer Axmed Warsame Abdon toos ah qadka escape-ka ugu jira. Engineer soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد أبو سلامة يا سلام دير كلي الله adiga iyo teamkaaga waata aad iyo kaaga mahad celinayaa engineer bal marka ugu horeysa hadii aan ku hormarno xiliyadii la soo dhaafay waxa soconayay in baraha bulshadu Soomaalida ay isticmaasho si weyn la isku dhaxmarayay waxyaabaha la xiriira dhinaca qabyaalada dhibaatooyin aad u xoogan arrintaasi ay ka dhalatay dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u dhibsadeen aqoonyahan ah taasi oo keentay in dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay xilligan la arkayo iyagoo qabyaalad ka sheekeynaya barihii bulshada u isticmaalaya. marka arrintaasi marka hore maxaa keenay in dhalinyaro age-koodu ama da'doodu intaas tahay ay xilligan ka sheekeeyaan qabyaalad? soo dhawow. waa mahadsantahay maxamed. horta runtii wax aad iyo aad loola yaabo laga naxaweeyo maaragtay fajacaad weyn keenay in maaragtay dad dhalinyaro ah oo weliba hablo u badan in ay social mediaha hadduu yahay maaragtay twitterka hadduu yahay snapchatka facebooka youtubeka ay la soo istaageen inay maaragtay qabaa'illa ku caayaan ku aflagaadeeyaan la soo geliyo waxyaabo aan dhaqanka Soomaaliyeed ahayn maaragtay awal waagi hore waxaa la jiray qabyaalada guryaha iyo waxaas looga sheekaystaa in social media saas loo soo geliyo. nasiib darrada kale jirta hore ay tahay inay yihiin waxa isticmaalaya waxa kan dadka bulshada ku kicinaya aflagaado iyo erayo aad iyo aad u qariban inay dhalinyaro yihiin dad aan isleeyahay waa 30 sano wixii ka yar ay yihiin oo dadka aan islahayn maaragtay mustaqbalka Soomaaliya weeye inay maaragtay ku dhiiradaan iyaga oo aan isqarinin iyaga oo la arkayo inay ku hadlaan ama ku hadaaqaan ama 24 saac la taagan yihiin inay reero wax ka sheegayaan. hadda qabiilku wax un maaha haddaan si xun loo isticmaalin. qabiilku waa wax la isku garto dadka lagu kala garto la isku haybsado laakiin ma aha qabyaaladu wax fiican ma aha waa wax aad iyo aad u xun waa wax dalkeena burburiyey waa waxa heerka maanta ay Soomaali taagan tahay ka hartay wadamadii ay ka horreyn jirtay gaarsiiyey waa qabyaalad iyo wax aan maaragtay macno lahayn oo lagu mashquulay loo isticmaalay weliba si qariban loo isticmaalay. marka runtii waa nasiib darro dhalinyarta waxaa la rabaa in laga waaniyo in laga wacyigeliyo aafada ay leedahay qabyaaladu dhibaatooyinka ay mujtamaca u geysanayso dhibaatooyinka ay horumarka u geysanayso iyo dhibaatooyinka ay dawladnimada ku haysaba. midda kale oo aan rabi lahaa inaan taabto waxa weeye dawladda lafteeda waxaa loo baahan yahay in waxaan si dhaba xoogga loogu saaro oo aanay faraha ka bixin dadka waxaan faafinaya iyo kuwa maaragtay ama ha ahaado mid ku hadlay ama ha ahaado mid Facebook ama dhigay aaladaha la isticmaalaya soo bandhigay ama ha ahaado mid qaybiyaba in maaragtay ciidanka la sameeyo social media dabagal ku sameeyo waxaan ka xira meelaha baraha ay leeyihiin haddii ay maaragtay jooji waayaan ka wacyigeliya. waxaa loo baahan yahay saxaafadda qaranku inay isticmaasho saxaafadda ay haysato iyo saxaafadaha kale ee madaxa bannaan laftoodu inay maaragtay door weyn oo muuqda ka qaataan ka waaniyaan dhalinyartu waxa kale inaanay fiicnayn. dadaa waxaa laga yaabaa inay waxaan wax fiican u yihiin u haysta dadaa waxay u haystaan maaragtay waxaan wax soo kordhinaya inay yihiin laakiin wax soo kordhiyana maaha wax fiicanna maaha waxa weeye mujtamaca gadaal u dhiga weeye. halkii ay dhalinyaradu waxbarasho ku mashquuli lahayd halkii ay horumar ku mashquuli lahayd halkii ay ku mashquulayaan inta maskaxdooda tuujiyaan inay fikir cusub ka dhaliyaan
ay maaragtay wax horumar la soo bandhigaan kana reer hebel iyo reer hebela sidaana inay la soo fariistaan wallahi ceebna way ku tahay oo mujtamac dhanna ceeb bay ku tahay khaasatan dhalinyarta hablaha weliba habluhu weligoodba dad waxay ahayd dhalinyarada ka dhowrsisan oo gabari ragu joog baa la dhihi jiray maaragtay reeru joog maaha marka inay maaragtay hablihii halkaa la soo istaagaan wax aan maaragtay afka bini'aadanka soo mari karin wax laga xishoodo ceeb ah wax maaragtay xishood kalimaa xataa laga yaqiiqsado inay halkaa la soo istaagaan ayaadhowt waxaad arkayseen hooyo qorisatoo nin ku dishay ayaan arkaynoo leh maaragtay waxbaan u aaraya waa wax weeye arrimahaasoo kale waa arrimo ugub ku ah dhaqanka iyo soo jireenka soomaalida ugub ku ah weeye wax ceeba weeye marka runtii dhalinyartu iyadoo awalba laga eed sheeganayay oo waxyaabo badan laga qaylinayo sida maaragtay faamiliyada dhexdooda waxa ka dhacay ninka gabadhiisa xaaskiisa gubaya ninka gabadha xaaskeedii mataqaanaa odaygeedii ama gubaysa ama dhibaato nabar ku dhufanaysa waxyaabo noocaasa social media iyo kusoo batay mujtamaceenna waxaa loo baahanya waxyaabaas in laga digtoonaado waxaa loo baahanya in xoog looga hadlo waxaa loo baahanya in dowladduna ay maarata farasaato haddii kale waxay keenayaan tani dhowr waxyaabood oo aafa ku ah oo mujtamaca soomaalida ayay keenaysaa waa mide dadkii iyo dhalinyartiiba isku diraysaa iska hor keenaysaa waa mid kale amnigii bay ka hortegaysaa iyo deganaashihii magaranaysa shacabka iyo maarata deganaashihii degmooyinka iyo dadka mataqaanaa soomaali sideedaba waxaa la yidhaahdaa lana oran jiray weligeedna ay ahayd dad dagaalo ah dad wada dhashay iyo wiil iyo abtigiis iyo wiil iyo adeerkiis ayaa weligeedba la ahaa marka in bal dhaqankii lagu soo noqdo waxaa dhaqan xumada ah lagu qaado lagala hortago dagaal culus lagu qaado oo maaragtay aysan faraha laga qaadine hadday ahaan leed saxaafadda madaxa bannaan iyo hadday ahaan leed tan dawligaaba in arrintaas xoog looga hadlo oo xoog loo mataqaanaa loo joojiyo ay u baahan tahay maxamed marka aad eegtid oo da-doodu ay yar tahay isla markaana arrintan ka qayb qaadanaya oo dhinaca qabyaalada sida weyn uga qayb qaadanaya ma is leedahay xilligan in dadkii dhalinyarada ahaa ay ahayd aqoontooda inay kororto wacyigooda inuu kordho ay fahmaan wax ka duwan wixii 30 sano burburka lagu jiray dalkeena Soomaaliya burburiyay in ay fahmaan ay ahayd in hadeertan ayagii ay bilaabeen in kuwii kasii yaryaraa aan la soconba waxaan qabyaaladu waxa ay tahay iyo dhibaatada ay leedahay iyo dagaaladii sokoye lasoo maray iyo wixii laga soo maray in ayaga hadda wacyigelin ay u sameynayaan qaabkaasi ay dadkiiba ay u tusayaan inay tahay wax wanaagsan hadhow dhalinyarada kale kuwaas kasii yaryar ay u arki karaan runtii waa saad si fiican baad u dhigtay arrintan tani waxyaabaha anigu aan arkay oo runtii aan aad ugu korgalay anigu social media waan eegaa waan mataqaanaa waxa soomaalida dhexda ka socda waa la socdaa dhalinyarta maaha kaliya kuwa dalka jooga kuwa qurba jooga oo aan qabiil arag oo ku barbaaray qurbaha ku maaragtay wax ku bartay ayaa maalin walba la taagan baad arkaysaa ama twitterka ama mataqaana meelaha kale ee social media la taagan baad arkaysaa waxa la yaab kale meel qabyaalo laga yaqaana ma joogaan kuma aanay noolaan ma aanay soo arag waa carruurtii dagaalka sokeeyaha laga soo badbaadiyey ee waalidiintu wax alla waxay hanti haysteen intay mataqaanaa u iibsadeen oo baabi'iyeen ay kula soo carareen in mataqaanaa carruurtaas mustaqbal yeelato inay iyaga laftoodu haddana ay hadda social media qabyaalad iyo wax aan wax macno leh oo ay soo kordhinaysa la arag ay ku mashquulaan kuwa gudaha joogaahuna ay kaga daystaan iyo kuwa da'da yarba inay ku mashquulaan waxa kaloo iyadoo nasiib darro ah da' yartaa dee dad baa dhalay
waxaana kulley gurigaa lagala yimid in mujtamaceenu ay fahmaana loo baahan yahay bahashaan qabyaaladda la yidhahdo horta qabiilka iyo qabyaaladdu waa labay kala yihiin bahashaan qabyaaladda la yidhaahdo waxa weeye waa sun waaye waxa weeye runtii waa wax qarmuuna weeye waa wax ummadda kala geeya waaye waa wax labadii dad isku xigay ama labadii idhaahda ugu saaxiibada ahaa kala kaxeeyey oo keenay xataa saaxiibo inay ku kala go'aan waa waxa keenay in reer ku dumaan in ay runtii waxay ahayd aan carruurta lagu barbaarin wahaa in carruurta la fahamsiiyo waxa qarannimadu ay tahay waxa dowladnimadu tahay waxa ay soomaalinimadu tahay inay reernimadu waxa ka muhiimsan soomaalinimada ka muhiimsan in soomaalinimada laysugu heliyo in soomaalinimada laysu dhowaysto ummadaha kale soomaali unbaad u tahay idima kala soocaan idima kala garanayaan idima kala aqoonsan karaan isku mid baad wada tihiin wadad isu wada ego oo isku koobiyaa tihiin in mataqaanaa adduunyadu nagula yaabto waalidiintan hadalkan u wadaaye in adduunyadu nagula yaabto waxa weeye waad ogtihiin oo caalamka uu la yaabo la yidhaahdo war dadka kale maxay isku haystaan ummad isku luuqada laakiin waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah dadkan dhalinyarada ah waa dadkii waxbarashada soo maray soomaaliya xilligii wax la baranayay wax soo baranayay qaar kamida qurbaha ayay joogaan qaar kamidana gudihii dalka ayay joogaan marka dhalinyaradii wax baratay haddii ay qabyaaladii iyo waxyaabahan ay ka sheekeynayaan dadkii reer hebel iyo reer hebel iskugu dirayaan iskugu dagaalayaan bari bulshada la iskugu dhex dagaalayo maxaa laga filan karaa kuwa miyiga jooga runtii maxamedow horta dadka waddanka gudihiisa jooga waxaan waa wax ku cusuba mar dhowbaa la bilaaba laakiin bahashaan in muddaaba qurbahay ka socotay waxaad og tahay in magaranaysaa layskala qoloqoleeyey oo qoqob ay iskeliyeen ayagoo qurbaha ku wada nool in qoqob la iskeliyey oo maaragtay xaafadaha aan inta badan laysu wareegin guryihii ilmaha laga sumaynaayo arrintan anigu waxaan isleeyahay gudaha kamay jiri jirine qurbaha ayay ka timid baan isleeyahay bahal sumaysan oo runtii aad la fajacayso ayaa halkaa lala soo istaagay dhalinyarta gudaha joogtaahina waxaas bay fiirsadaan kuwa qurbaha jooga ayaa u ah kuway ku daysadaan u ah marka runtii nasiib darre aad iyo aad u weyn weeye casriga maanta la joogo in dacyarteennii loo soo qabto loo soo xirxiro ayagoo social mediaha kaga hadlaya waxyaabo mujtamaca oo dhan aafa ku ah waa nasiib darre aad iyo aad u weyn waxaan la hadlayaa waalidiinta ayaa ugu muhiimsan in ay arrimahan xakameeyaan dhalinyartana aan xakameyn karaan marka waalidiintu qaabkee u xakameyn karaan maadaama dadkan dad waaweyn ay yihiin dhalinyaro ha noqdaan laakiin haddana waa dad waaweyn qaar waxaa ku jira caruur haystaa marka maadaama ilmo yaryar aysan ahayn sidee ayay waalidiintu u xakameyn karaan horta laba meeloodba wixii waa in laga xakameeyo mid arrinta guriga in laga xakameeyo oo wixii dadkaanu hadda qabiilkii bay si xun u isticmaalayaan xataa qabiilkii waa moogtahay ayaa waxaa laga wax social media lagu dagaalamo oo laysku caayo oo laysku eriyado oo wax laysaga sheego marka horta dadka waaweyn way garanayaan aafada ay bahashaan leedahay way soo mareen qarankeeyo dhan baa ku burburay qaxooti waxay noqdeen bannaankaas yaalla oo meel kasta maaragtay saa xun loo eegayo oo aan mataqaanaa nolol ku haysan waad aragtay sida uu mid walba oo soomaaliyaad aragto dalkii ugu haminayo inuu ku noqdo inuu dalku hadduu dego waad ii dego waan aadi lahaa waan ku noolaan lahaa laakiin hadda xaaladdu de hadday saa kusii socoto dee xaggaad ku noqon marka waalidka waxaa laga rabaa inay wacyigeliyaan ilmahooda dhalinyartana laftoodu inay iyagu iswacyigeliyaana loo baahan yahay in loo qabto mataqaanaa shirar loo qabto in la abaabulo khaasatan magaalooyinka waaweyn
dalka waa tahay in la abaabulo. waa tahay engineer qaybta Twitterka hadda gabar lagu magacaabo Nasteexa oo kale waxa ay leedahay dowladda federaalka ah ayaa qayb ka ah oo dhalinyaradan dhiirigelin u sameynaysay oo markii hore la kulmaysay soo dhaweynaysay marka dowladdii soo dhaweynaysay ayaa haddana xirxiraysa dhalinyaradii markii horena hab qabayaaladaha lagu soo dhaweynayay. waxa weeye way mahadsan tahay gabadhaas runtii dad mas-uuliyiina oo wax aan meesha qaban ku hadlaya waa jiraan, waa run. dadkaa laftooda in waxa weeye dowladdu ay tilaabo ka qaaday ahayd, jagooyinka ay hayaan laga qaado, in mataqaanaa aanay astaahilin inay mujtamaca matalaan. qofku marka uu mas-uul noqdo oo jagad dowladeed loo dhiibo, dadka oo dhan buu u yahay mas-uul u yahay. ma aha reer uma aha, qoys uma aha, qabiil uma aha, ummadda oo dhan buu u yahay maaragtay mas-uul u yahay. qof mas-uuluhuna hadduu waxyaabaha runtii bulshada ka dhex abuuraya, xasilooni darrada ka dhex abuuraya hadduu ku hadlo ama uu social mediaha soo dhigo, waxa weeye in sharciga la horgeeyo weeye. dad badan oo la yaqaano waxaa jira beryahanba maaragtay social mediaha soo dhigayo dad xataa dowladda u shaqeeyo jagooyin haya ayaa jiray. arrintaas in fiiro loo yeesho, inay twitterada waxay ku qorayaan ka daayaan, wixii horey ku qoreenna ay ka tirtiraan, in aysan dhalinyarta aysan caafayn. dhalinyartii waxayba u qaadataba wax casriyaho fiican inay samaynayaan bay u haystaan, laakiin aafada ay samaynayaan waa mid ummadda oo dhan saameyn ku yeelan karta, oo dalkan xataa dib ugu celin karta dagaallo sokeeye iyo dhibaatooyin hor leh dalkan dib u gelin karta, dib u dhac u keeni karta. marka waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo dadka mas-uuliyiintana, tilaabo adag laga qaado. carruurta lasoo xirayo waxaa ka daran dadka mas-uuliyiinta oo waxa ay ku hadlayaan dadku ay u malaynayaan inay wax saxa yihiin. waa wax aad iyo aad u xun. qabyaaladdu waa wax ura, waa wax qarmuuna, wax fiican maaha. annagu xilligaan dhalintaan oo kale daadooda ahayn saaxiib baan naqaan. annagu reer iskumaanaan raaci jirin, reer qabiil maanaan aqoonin. waxaanu naqaanay mataqaanaa ma garanaysaa saaxiibkay ninka ah. marka sheekooyin badan oo caan ah oo ka soo baxay baa jira, sidii magaalada lagu joogi jiray waagii hore, laakiin waxaad u malaysaa duurjoogtii inay hadda isugu soo aruurtay. ayaad waa saas. waxaa jirtay magaalada muqdisho oo kale xilligii aniga aan joogay oo kale, waxaa jirtay in dad deris nala ahaa muddo dheer oo ilaa iyo ardaydii dugsiga qur-aanka iyo mar walba aan wax isla baranaynay aysan dhici jirin in aan naqaano qabiilkooda, oo qofkaasi muddo weliba dad badan oo kamid a aniga xilligii qurbaha lasoo gala kabacdi waxaan ogaada qabiilkooda iyo meelaha ay kasoo jeedeen. laakiin markay dugsi qur-aanka nala dhiganayeen maanan ogeyn, markii iskuulka aan isla dhiganayna maanan aqoonin. marka dhalinyaradii noocaas ahayd ee magaalada muqdisho aan qabiilka aqoonin, qofka markii qabiilkiisa xataa la weydiiyo ama in la weydiiyoba aysan dhici jirin, laakiin haddii xitaa lagu weydiiyo xoogaa xishood badan dareemi jirtay in qabiilkaaga lagu weydiinayo lagu leeyahay yaa tahay ama qabiilkaaga waayo, inkastoo isa adkeedba in xataa qofka ku dhihi kara uu ahaa qof markay saas oo kale ay tahay qof aan magaalada muqdisho kusoo barbaarin ama aan ku dhalanin ama aan kusoo korin. marka laakiin hadda aad arkaysid barihii bulshada dad magaaladii muqdisho ku dhashay, kusoo koray, in ay ka leeyihiin anakoo reer hebela, reer hebel iyo reer hebel, anakoo reer hebela, reer hebel iyo ma degaan meeshaan, reer hebel aad degan iyo reer hebel waa degaan iyo reer hebel ma degaan. marka noocaas oo kale in ay wax u turjumayaan sidee u muuqanaysaa? waa nasiib darro. waa saad horta ad sheegtay xilligeedii hore cid qabiilkeeda taqaana male. ninka qofka yidhaahdaa yaa tahayna waa lala yaabi jiray, xaggee ka yimidaa la dhihi jiray. sababtoona waxay tahay macno may samayn jirinba. qabiilka in lais weydiiyo ama qofka qabiilkiisa la ogaado macno ma samaynaynin. hadda lafteeda macno ma samaynayso. waxa weeye laakiin waa sun meel kale anigu laga soo dhoofiyaan isleeya. sun ummadda hadda lagu dhex beerayo weeye.
waxaana loo baahan yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo dhaga la qabtay leedahay daba la qabto male hadda ayaa loo baahan yahay in laga hortago suntaas in dhalinyarta laga wacyigeliyo in ma garanaysaa runtii kulle kuwaan reer magaal maaha waxaan hadda meelaha la taagani reer magaal maahane meelaha ka yimaadeen inay maarata lagu celiyaaba haboonadan isleeyahay dhalinyartii ciyaal magaalka ahayd ayay balaynayaan oo ay dhibaato iyo masiibo u horseedayaan mashaakilkuna waxay tahay haddee tiktokgii iyo facebookgii baadiyihii bay tageen xoolihii hadda la joogaan marka mushkiladda horta halkaasay ka timid halkaasaa laga afuufayaa inkastoo anigu beri dhexdaan aha waxaan tegey waxaan banaanka baadiyahan aaday runtii wax qabiil danaynaya ma aanan arag iyo wax dhahaya kan yuu yahay iyo kan xagee ka yimid iyo wax le ma aanan arag laakiin suntaan meesha ay ka timid anigu waxaan isleeyahay waa wax cusub waa phenomena cusub oo mujtamaca lagu soo dhex fuufayo oo mujtamaca la rabo in lagu kiciyo lagu kala dilo dhibaato lagu abuuro waan wax meel kale ka imaanayee maaha wax ay dadkaanu alifeen laakiin waxay u baahantay in layska wacyigeliyo in dhalinta la wacyigeliyo in maaragtay ay dadka waaweyn ee khiyaarta ah ahlu cilmiga ah ahlu caqliga ah ahlu diinka ah inay arkaan mataqaanaa door muuqdo ka qaataan kana hadlaan lagana wacyigeliyo waata waxaan u laabanayaa qaybaha dadka commentiga isla twitterka dadka nagala socda waxa ay leeyihiin cabdirasaaq magaca kale oo ku qoran ma fahmin cabdirasaaq oo kale waxa uu leeyahay dad waaweyn oo aad leedihiin macnaha xilligii hore magaalada muqdisho ayay joogi jireen ayaa waxa ay ka mid yihiin dadka qabyaaladda hadda hurinaya oo dhalinyarada u horkacaya qabyaaladda iyo in laga sheekeeyo marka maxaa kuwaas wax looga qabala yahay oo keli ah kuwan loo arkayaa horta dadkaasu intooda badan waa dad qurba jooga dadka magaalada anigu waddanka joogay ma u malaynayo inay maarata saas ugu dhiiradaan dantooda kalaaba ka badan nolol maalmoodkeedaas ay ceyrsanayaan iyo lifeka iska adagba sidiisaba iyo mataqaanaa hawlaha ka dhaca nimanka kuwa aan hawluhu ka dhicin waa kuwa halkaa fafadhiya ee cayrta iyo ku nool maaragtay waxa kaniisaddu ku sadaqaysata ku nool ayaa afuufaya waxa kan inta badan horena waan usoo sheegay waanan ku celinayaa dad fara badan oo qurba jooga ayaa naqaanaa oo aan wax kale ka shaqayn wax kaleba ka shaqayn 24 saacna aan social media ka bixin dadkaas waxaad ogaanaysaan intooda badani waa dad mataqaanaa aan weligood iyalood shaqo u ka lahin waa dad facebooka iyo youtubeka wax ka raadiya waxay rabaan caydaas iyo aflagaadadaas iyo waxaas in dadku ugu soo galaan oo qolkooda loo camiro oo waxooda loo daawado waxa ku jira aan dhaqaalaha dadka ka raadinaya kamid ahayn oo dad xilal haya ay ku jiraan kuwaasi oo qabyaaladda sidoo kale ka qayb qaato oo marar walba baraha bulshada sida facebook oo kale wax ku soo qora dadka saas oo kale loo yaqaano tilaabo cad baa laga qaadi karaa waxa weeye xataa kuwa qurbaha halkan jooga waxaa la samayn karaa boliiska loo sheegi karaa qofka colaad hawranaya qofka inta facebook soo fariista ama youtube soo fariista ama twitter soo fariista ee reere wax ka sheegaya colaad buu hurinayaa qofkaas waxaa la rabaa in twitterkiisa laga cawdo cabashaa samayn kartaa hadduu twitter yahay hadduu facebook yahay waxa lasoo dhiga waad ka caban kartaa waxaad ka codsan kartaa youtubeka xataa inay ka saaraan ayaad ka codsan kartaa adoo sababaynaya sababta ada u leedahay in laga saaro inay waxaan colaad hurinayaan inay dad isku dirayaan inay loo isticmaalaya aaladihii social mediaha mataqaanaa si kale loo isticmaalo ummad wax looga sheegayo oo lagu dhibaateynayo marka waad calaamadayn kartaa qofkaas waxa uu meesha soo dhigo dhan baad calaamadayn kartaa waxaanad ka gudbin kartaa mataqaanaa cabashaad ka gudbin kartaa arrintaas waxay keenaysaa in la xakameeyo kuwa badanoo waxaa jiraan cabasho ka keennay oo laga joojiyaa jira oo mataqaan digniin baa loo dirayaa baa loo diraa dabeetana waa saasaa looga joojinaya
waa tahay markii aad eegtay dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo hadda bilowday in dadkan tillaabooyin ay ka qaado oo hadda wada in qaar badan oo kamid a dadkii ama tviyada ha noqoto ama ha noqoto maxaa la yihahdaa social media sida tiktoka, snapchatka, facebooka, dadkii ka qaylinayay qaar kamid ah ee dhalinyarada ahay ee qabyaalada abuurayay in dowladda hadda xabsiga ay dhigayso, ma isleedahay arrintaasi waxa ay keeni kartaa in dadku cabsi ay gasho ah inay ka hadlaan qabyaalada? way keeni kartaa oo wixii waddanka gudihiisa jooga oo la arko in la qabto waa wax muhiim ah. weliba waxaan anigu ku talin lahaa dowladdu inay samayso ciidan qaabilsan social media oo waddamada adduunka o dhan waa ka jiraan ciidamadaas, meel kastay ka jiraan. social media waa lala socdaa, waa ishaa lagu hayaa. haddaad ka dacweyso waxbaa laga qabanayaa. xataa waad xiri kartaa oo dad badan baa laga xiraa. dadku waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaasha 4 sano ka hor Donald Trump oo madaxweynaha Maraykanka ayaa Twitterkii laga xiray, loo diiday. waxaana looga xiray hadallada uu soo gudbinaya ayaa waxay yahayn hadallo colaad iyo isku dir mujtamaca dhibaateyn keenaya. madaxweynihii dhammaan Maraykanka ayaa laga xiray. marka waa la xakamayn karaa. annaga lafteenna waxaan isku waaninaynaa oon idinku wada waaninayaa oo idinkula talinayaa qofka waxaa soo dhiga in la calaabadeeyo facebookiisa iyo twitterkiisa iyo youtubekiisaba, cabashana laga gudbiyo. waad ka gudbin kartaa. kolley qaabka loo gudbiyana bal mar kalea soo dayn doonaa iyo qaabka maaragtay dadkaas looga hortagi karo. iyadana barnaamij kala insha allah kusoo gudbin doonaa oo waana wadi doonaa barnaamijyadan wacyigelinta ah ee dhalinyarta iyo dadka kalaba laga wacyigelinayo inaanay wax hawlaha ka ku talax tegine danaha shakhsiyadeed iyo danaha qaranka ay ka shaqeeyaan. waa tahay injineer, aada u mahadsan tahay. ugu dambeyntii markaad eegtid dhalinyarada soomaaliyeed wadamada africa waxa ay muujinayaan oo soomaaliya oo kale hadda marka loo eego dhalinyaradoodu in ay horumar badan sameynayaan, dhinacyada ganacsiga oo kale ay ku jiraan, dadaalo kale ay wadaan, qaar badan oo kamid a jaamacadaha aad si weyn ugu dhex arkaysid. marka in dhalinyaradii soomaaliyeed xilligan qabyaalad lagu hogaamiyo oo siyaasadii soomaaliya inta qabyaalad noqotay, qabyaaladaasi ayagina dhinacii kale u qaaday, sidee arrintaasi ay noqon kartaa mustaqbalka soomaaliya? dhibaato intee la eg ku tahay? aafo weynay u keenaysaa mujtamaca. dadka aan runtii anigu ka hadlayan hadda ku waaninayaba inay maarata door ka qaataan in wax aan lala dagaalamo waa dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxday iyo kuwa ku jira ee wax bartay, fahamsanna waxa kale inay tahay qabyaaladu inay tahay dhaqan waa hore dunidu ka guurtay. 1000 sano ka hor bay laga guuray. waddamadan aan ku noolnahay ayaa clan systemka laga guuray 1000 sano ka hor. marka wax 1000 sano ka hor laga guuray inaan annagu weli saynta haysano waa wax mujtamacana dhan bay ceeb ku tahay, annagoo dhan bay ceeb nagu tahay. qabiil ciduna wax kugu siin mayso. anigu weli mid ma aanan arag qof yidhaahda maaragtay qabiilkiiba ama tolkiiba waxa kan igu siiyey ama waxa kan ii keenay ama mataqaana horumarkan ii gaarsiiyey. anigu weli ma aanan arag. runtii waxa qabiil waxuu kaa rabaa inaad dagaalanto. marka ugu badanya qabiilku waa marka lagu yidhaahdo aye dhalinyarta dabka la saarayo oo laleeyahy reer hebel baan ku duulaynaa. waxaana waa dhaqan laga tegey, waa hore laga soo tegey. in maaragtay waxay ahayd hadda inaan anagu ka gudubnay ahayd oon fahamno macnaha dowladnimadu ay tahay. qabiil dowlad ma noqdo, qaran ma noqonayo. weligii alle qabiil qaran ma noqonayo. waanad ogaan doontaan haddii qabiil isku dayo inuu qaran noqdo berri jufo iyo laflaf iyo jilib ayay isu baabi'inayaan. laakiin waxa weeye waxa nidaamka dawliga ah ee qarannimada uga fiican ma jiraan. waxaanana waxaa sii shidaya maxamedow waddankii waa la kala qoqobay. maamul goboleedyo waxbaa loo kala qoqobay, dhibaatuu keenay. waxaa samaysmay meelaha qaar
qabaa'ilo dowlad sheeganaya qabiil dowlad sheeganaya oo maamul goboleed qabiil soocan oo degan yahu kuleeyahay mataqaanaa annagu dowlad baana marka weeye runtii qabiil qaran noqon waa weligiisna ma noqon haddana ma noqonayo soomaaliya ama waxay weeye caqligaa usoo noqon qarannimadii baa lagu dagaalamay qaran wada jira ayaa ayay abuur weliba ku abuuri raba kuwaan hadda la hadlayna dhalinyarta ayaa la abuuri ama dee waxay noqonaysaa dad ummad aan isxukumi karin ugu dambayntana loo talin doono cid baa imaanaysa dadkan u talisa madaxa dhagaha ku dhufatoon u naxariisanayno waa soomaali iyo waa reer hebel iyo aan aqoonin ayaa u imaanaysa hadday isxukumi kari waayaan oo nidaamkooda cesho kari waayaan dhalinta runtii anugu aad iyo aad iyo dadka mataqaana ahlu fikirkaaba waxaan leeyahay arrintaas oo lala ballaaran laga qaado hana laga soo horjeesto hana la baabi'iyo cidda dariiqada la soo istaagtay cid kale wax ka sheegaysa ama mataqaanaa reer hebela saana iyo meelaha la taaganna in dowladda sharci ka soo saarto maaragtay gacantana loo geliyo hay-adaha amniga waa tahay aada iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa injineer axmed warsame abdoon oo maanta barnaamijkan oon uga hadlaynay dhibaatooyinka qabyaaladu ay ku haysto mujtamaca soomaaliyeed iyo weliba xilligan sida looga hortegi karo arrintaasi oo wax looga qaban karo falanqeynayay anigoo maxamed saad ila socodsiinayay intaa barnaamijkan barnaamij xaga kulmi doono dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu